saddex xildhibaan oo ka tirsan aqalka baarlamaanka oo loo magacaabay xilal wasiir ayaa iscasilay kadib markii ay xildhibaanada aqalka baarlamaanka baas mariyeen magacyadooda. saddex xildhibaan oo kale ah xildhibaanka Gaarisa Township Aadan Barre Ducaale, xildhibaanka Kandara Alisan Wahome iyo senatarka Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen ayaa warqadaha iscasilaada u gudbiyey afhayeenada aqalada baarlamaanka iyo senadka. saddexda xubnood ee Arbacadii ansixiyeen golaha baarlamaanka ayaa ballan qaaday in ay xoojinayaan xidhiidhka ka dhexeeya waaxda sharci dejinta iyo fulinta. Aadan Barre Ducaale ayaa hadda noqon doona wasiirka daafaca ee dalkani Kenya, halka Kipchumba Murkomen uu noqon doono wasiirka wadooyinka iyo gaadiidka. Alisan Wahome ayaa noqon doona wasiirka biyaha, halka Sauban Tuya ay noqon doonto wasiirka deegaanka. Afhayeenka aqalka baarlamaanka iyo senadka ayaa lagu wadaa in ay shaaciyaan in kuraastii ay xildhibaanadaasi ku fadhiyeen ay bannaan yihiin ama bannaanaan doonaan si doorasho ku celis ah loo qabto.